بسم الله الرحمن الرحيم. سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلنتي وعنا وناسن داودياشنا قيمة غاية مدن كسر لواء الصومالي تي في مقالة بوصاصو داودي الوافين مثل هذا تاريخ ذنا يكون بيجان تعيشنا توان كمبيشس لحال لبضة كل وقتني كودا داودي الواح وركنا في مدرسة عسين دوناني ومحمد عبد العزيز سعيد نوح محمد صومالي قد بدأ هو وين وركنا في نوح حاكم من الداوديات maamulkaasi galmudug oo shuruudo ku xiray ka qaybgalka shirka qaran ee ka dhacay magaaladaasi Muqdisho. Wasiir Afrax oo kula gaar la yeeshay safiirka Turkiga. Qaramada Midoobay oo maanta u aqoonsatay maalintii ugu dhigdaasha banaan magaalada Yongbyon ee dalkaasi Myanmar. Faafahinta dilka dhacay tuulada Ceelmaal ee dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya. daawadayaal kuwaasi waxay qodobada u dorkoon warkana fiidnimo haatan ku soo dhawaada iyaga oo faahfaahsan. wararka ka imaanaya degmada Suluuq ee gobolka Gedo ayaa sheegay in ururka Al-Shabaab ay xalay weerareen saldhigga ciidamada Itoobiya ay ku leeyihiin aaga buundada degmada Suluuq. dadka deegaankaasi ayaa Somali TV u sheegay in weerarkaasi uu qalqal ku abuuray oo noqonayo kiisii ugu horeeyay oo ka dhacay degmadaasi intii muddo ahba. Maxamed Mursal oo dadka deegaanka kamid ah ayaa sheegay in baqdinta ugu weyn ee dadka deegaanka ay tahay iyagoo ka baqdin qaba in shabaabku ay weerar kala soo qaadaan inkastoo aysan ku soo rogaal celin degmadaasi. lama oga khasaaraha ka dhashay dagaalkaasi. waxay saraakiisha booliska sheegeen inay baarayaan haddii uu jiro khasaaro rayidka soo gaaray. guddiga kumeel gaarka ee doorashooyinka Puntland ayaa maanta oo Axad si rasmi ah u shaaciyay waqtiga la bilaabi doono diiwaangelinta codbixiyayaasha saddexda degmo oo lagu qaban doono doorashooyinka golayaasha deegaanka oo hordhaca. war-saxaafadeedka ka soo baxaya guddiga ayaa lagu go'aamiyay in diiwaangelinta codbixiyayaasha degmooyinka la bilaabayo 16 bisha May ee sanadkan 2021 isla markaana ay socoto ilaa 19 bisha May. degmooyinka Qardho, Ayl iyo Ufeen oo ka kala tirsan Karkaar, Nugaal iyo Bari ayaa la doonayaa in laga qabto doorashooyinka golayaasha deegaanka Puntland oo tijaabo ah sida lagu sheegay war-saxaafadeedka guddiga. maamulkaasi Galmudug ayaa cagajiid ka muujiyay ka qaybgalka shirka wada tashiga qaran oo lagu wado in lagu qabto xerada xalan ee magaaladaasi Muqdisho. Galmudug ayaa dalbanaysa in shirka dowladda federaalka, dowlad goboleedyada iyo maamulka gobolka Banaadir laga raro xerada xalan laguna qabto aqalka Villa Soomaaliya isla markaana uu madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo muddeeyo goorta uu shirkaasi qabsoomayo. wasiirka warfaafinta Galmudug Axmed Shire Falgale ayaa sheegay in Galmudug ay qabto in madaxda Soomaaliyeed ay iyagu xalistaan wixii khilaaf ah oo dhexdooda ah. sidoo kale mid la mid ah mowqifkaasi Galmudug ayaa waxa qabta Koonfur Galbeed oo aan iyaduna doonaynin in shirka wada tashiga qaran lagu qabto xerada xalane. madaxweynayaasha Koonfur Galbeed iyo Galmudug Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen iyo Axmed Cabdikaariyo Qorqor oo si dhow loola xiriiriyo Villa Soomaaliya ayaa ku sugan dalkaasi Turkiga iyagoona ka soo horjeeda in shirkaasi ay maamulkiisa qayb ka noqdaan beesha caalamka. wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Mukhtaar Xasan Afrax ayaa kulan gaar ah Muqdisho kula yeeshay safiirka Turkiga u jooga Soomaaliya Mohamed Yilmaz. labada mas'uul ayaa ka wada hadlay sidii loo sii xoojin lahaa xiriirka ka dhaxeeya labada dal. safiirka Turkiga oo fadhiya Soomaaliya Mohamed Yilmaz ayaa qoraal uu soo dhigay bartiisa Twitterka ku yiri waxaan ku faraxsanahay inaan kulan la qaato wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliya waxaana ka wada hadalnay xiriirka labada geesood iyo xoojinta iskaashiga labada wadan. tuulada Ceelmaal ee degmada Tuuli Guuleed ayaa lagu dilay 2 qof halka mid kalena lagu dhaawacay. dilka waxaa geystay dable hubeysan oo ka mid ah shacabka Oromada ee dhawaan dib u dejinta loogu sameeyay aagaasi Ceelmaal. wariye Xasan Heykal ayaa warbixinta ka soo diyaariyay. wararka naga soo gaaray tuulada Ceelmaal ee degmada Tuuli Guuleed ee dowlad deegaanka Soomaalida ayaa waxay sheegayaan in lagu dilay halkaas 2 qof halka 2 kalena lagu dhaawacay sida uu ku soo waramayo wariyaha Daljir ee dowlad deegaanka Soomaalida Jabardi Yaxye. dilkaasi ayaa waxaa geystay dable hubeysan oo ka mid ah shacabka Oromada oo dhawaan dib u dejin loogu sameeyay aagaas ceelka biyaha ay ka cabaan dadka iyo dunyada ee deegaankaasi ku yaala. 2 qof ee dhimatay ayaa waxay kala ahaayeen Haarun Aadan iyo waliba Cabdi Cismaan Cumar halka wiilka dhaawac uu soo gaarana lagu magacaabo Maxamed Cismaan Cumar. tuulada Ceelmaal ee Tuuli Guuleed dowlad deegaanka Soomaalida ayaa waxaa degan ciidamada liyu booliska ee maamulka dowlad deegaanka Soomaalida. ma jirto ilaa haatan wax war ah oo ka soo baxay maamulka dowlad deegaanka Soomaalida. dadka tuulada Ceelmaal ee degmada Tuuli Guuleed
guuleed ee dowlad deegaanka ayaa hadal haya dhacdadan waxaana maalmihii u dambeeyay ammaanka uu ahaa mid soo hagaagayay kadib qolqolatooyinkii u dhaxeeyay Soomaalida iyo Oromada iyadoo dhawaan shirar lagu nabadeynaya qoomiyadda Oromada iyo Soomaalida lagu qabtay qaybo kamid ah dowlad deegaanka Soomaalida. daawadayaal waxaa intaas inooga warkeennii fiidnimo aad kala socoteen Somali TV ee magaalada Boosaaso. daawadayaal waxaa warkeena la socodsiinayay anigoo ah Maxamed Cabdilcasiis Saciid tan iyo inta aynu ku kulmi doono warwarkan lamid ah waxaynu kaga tegaynaa sidaas nabadgelyo.